Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal. Xilliga aan ku jirna awgeed way adag tahay inaan ka mahad celino nimcooyinka uu Allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey. Nimcooyinkaas oo aan la siinin dad badan jeclaan lahayn inay dhaafsiistaan wax walba si ay u helaan. Waxaan sidoo kale la daalaa dhacaynaa dareemidda in waxa aan haysanno aysan nagu filnayn. Waxaana mar walba is aragnaa innagoo dhexda ka taagan doonista ama rabitaanka waxa aanan haysan. Laakiin ma og tahay marka aan xoogga saarno waxa aanan haysan way adag tahay inaan dareenno qanaaco iyo farxad. haddii aad furto kitaabka qur-aanka suuradda ugu horreysa waxay ka bilaabmaysaa alxamdulilaah oo ay micnaheedu tahay mahad oo dhan waxay u sugnaatay eebbaweyne subxaanahu wa tacaala. kelimaddaanna waxay ka dhigan tahay in qayb walba oo noloshana ka mid ah aan allah subxaanahu wa tacaala uga mahad celino. haddii aan muslimiin nahay marka qofna weydiiyo xaaladdeenna waxaan inta badan ka jawaabnaa alxamdulilaah waana dhaqan suuban oo aan kaga duwannahay dadyooga aan muslimiinta ahayn. diinteenna suuban ee islaamka waxayna baraysaa in mar walba allah aan uga mahadino nimcooyinka uu ina siiyey. allah subxaanahu wa tacaala waxa uu suuradda 55 ee qur-aankiisa suuraturaxmaan waxa uu ku celceliyey 31 jeer hal su'aal. su-aashaas oo ah فبأي آلاء ربكما تكذبان eebbe subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ina abuuray kadibna adduunkan inoo sameeyey. waxaynu ka faa'iidaysanaa oo uu allah subxaanahu wa tacaala inoo sakhiray makhluuqaadkiisa sida qorraxda, dayaxa, daruuraha, roobka, hawada, xoolaha, dhirta, webiyada, badaha iyo dhammaan makhluuqaadka kale aan la soo koobi karin. adiga oo intaasoo dhan og macquul ma tahay inaad ka mahad celin weyso nimcooyinkaas? diinteena islaamka mahadnaqu waa qayb ka mid ah cibaadada. allah subxaanahu wa tacaala ayaana qur-aankiisa aayad badan ku sheegay sida suuratu ibraahim aayadda 7. aayaddan allah subxaanahu wa tacaala ballanqaad farxadeed iyo goodin ayuu isdaba dhigay. ikhtiyaarka ama doorashadana innaga ayuu ina siiyey. allah wuxuu leeyahay وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد aayaddan waxay caddaynaysaa in haddii aan ka mahad celino nimcooyinka oo allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey ay innaga uun faa'iido inagu jirto. haddiise aan ka mahad celin weyno haddana cidda ay dhibayso waa isla innaga. haddii aan isla garanno muhiimadda ay leedahay mahadnaqa haddaba su-aashu waxay tahay sidee noloshan ugu dabaqi karnaa? waxaan muuqaalkan jeclaystay inaan idinkula wadaago 3 qodob oo kaa saacidaya in noloshaada ay noqoto mid ku dhisan mahadnaqa, farxad iyo qanaaco badanna aad ka heli doonto insha allah. habeen walba inta aadan seexan ka hor daqiiqado yar waxaad ka fikirtaa kana mahad celisaa nimcooyinka uu allah subxaanahu wa tacaala ku siiyey. saakin hurdada waxaad ka soo toostay adiga oo nabad qaba. allah subxaanahu wa tacaala uga mahad celi. ogow inay jiraan dad badan oo aad nabad ku wada seexateen islamarkaana aysan u suuragelin inay soo nabad kacaan sidaasina ay ku geeriyoodeen. inkasta oo haddii aan isku dayno in aan tirino nimcooyinka uu allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey aanan awoodi karin sida uu allah qur-aankiisa ku sheegay, haddana isku day intii aad karto inaad ka mahad celiso. waxaad qiyaastaa haddii lagu dhihi lahaa waa inaad iibsataa neef walba oo aad neefsatid. yacni sidaan ognahay in aan neefsanno waxay muhiim u tahay nolosheenna. waxaana la sheegaa in qofka qaangaarka ah sida caadiga ah uu neefsado intuu dhexaysa 12 ilaa 20 jeer daqiiqadii. ka waran haddii ay qasab kugu ahaan lahayd inaad lacag ku bixiso neefsashada. aan dhahno qiyaas ahaan halkii mar ee aad neefsato $1 ayaad bixinaysaa. haddii celcelis ahaan 15 jeer aad neefsato daqiiqadii 15 jeer ayay noqonaysaa xisaabta. saacaddiina waxay noqonaysaa $900 24 saac oo maalintii ahna xisaabtaadu waxay noqonaysaa $21,600. waa hal maalin ogow. ka waran haddii aan xisaabino inta uu ilaahay cimri ku siiyo. marka walaalka sharafta lahow mar kale ka fikir arrintan. miyaysan ahayn inaan ka mahad celino nimcooyinku allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey? xilliyada salaadaha gaar ahaan sujuudda oo ah marka aad allah subxaanahu wa tacaala u dhowdahay waxaad badisaa xamdalada iyo ku shukrinta aad allah subxaanahu wa tacaala ugu shukrinayso nimcooyinka uu ku siiyey si ilaahay isna kuugu siyaadiyo nimcooyinkaas siduu qur-aankiisaba inoogu ballan qaaday. si joogto ah u dheh kelimaddan alxamdulilaah. ereygan waa erey dhihiddiisu ay fududahay laakiin miisaankiisu aad u culus yahay. allah subxaanahu wa tacaala agtiisana qiimo weyn ayuu ka leeyahay. marka isku day in dhihidda ereygan aad ka qayb dhigto howl maalmeedkaaga. ku dadaal inaad dhahdo ereygan xilli walba sida marka aad hurdada ka toosto, marka aad cuntayso oo aad dherigto, marka aad aragto wax ku farxad geliya iyo mar walba oo ay munaasab tahay. si kastaba ha ahaatee
innagoo og in mahadcelintu ay tahay ficil muhiim ah, haddana waa shay u baahan dadaal iyo ku celcelin badan. waxaa aad u fudud inaan u qaadano nimcooyinka aan haysanno kuwa aan leenahay weligeenna aan haysan doonno. dhinaca kalena aan diiradda saarno waxa inaga maqan, taasna ay keento inaan ilowno wixii aan haysanay. waana wareeg khatar ah, islamarkaana aan dhammaad lahayn. si aan u xalinno mushkiladaas, aan dhaqangelinno ficilkan mahadnaqa ah oo aan marka hore ka mahadcelinno nimcooyinka aan haysanno si aan u helno qanaaco nafsi ah. ilaahay subxaanahu watacaala noloshaada wuu hagaajin doonaa insha allah. ilaahay waxaan weydiisanaynaa in uuna siiyo awood iyo caqli aan kula imaano shukrigiisa, sidoo kalena nagu daro shaakiriinta. walaalayaal, mawduuceenna intaas ayuu ku egyahay. inta aan ku kulmi doono mawduuceenna xiga, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.